warbaahinta kaalmee kuwan ayaa ka hadlay howlgal ay ciidamada booliiska gobolka Togdheer habeen hore ku qaadeen xafiiskooda iyagoo ku beegsanaya saxafi Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah gudoomiyaha warbaahinta kaalmee kuwan. Saxafi Cabdiqaadir Cusmaan Dubad oo ka tirsan warbaahinta kaalmee kuwan oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka howlgalkaasi u dhacay, waxaanu sheegay in ciidamadu ay qaateen dhammaan qalabkii xafiiskaasi yaalay. taariikhdu markay ahayd 18 bishii 8 2018 oo ku beegnayd habeen hore waxa weerar lagu soo qaaday xafiiska aan ku leenahay magaalada Burco. waxaana weerarkaasi soo qaaday ciidamada booliiska gobolka Togdheer. ciidamadaas oo ciidamo aad u badan waxaana ciidamada la kala tubay dhammaan wadooyinka iyo isgoysyada agmara xafiiska. afaafka hore xafiiska ciidamo badan ayaa joogay. inta ka bacdi waxay ciidamadu awood ku galeen xafiiska iyagoo jabiyay albaabadii hore, waxaanay doonayeen oo ay ka raadinayeen xafiiska Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon. markii ay Cabdimaalig ka waayeen xafiiska gudihiisa waxay qaateen qalabkii xafiiska yaalay. markay ka soo baxeen xafiiska gaarigii Cabdimaalig oo xafiiska hortiisa yaala ayay sidoo kale awood ku jabiyeen iyagaan wax furaa u sidan. gaariga markii ay gudihiisa galeen baadheenna waxay sidoo kale baadhis ku bilaabeen xaafadihii jaarka. ugu yaraan 3 qoys ilaa 3 guri oo la jaara xafiiska ayaa baaritaano aad u foolxun ay ku sameeyeen ciidamadu. waqtiga ay ciidamadu guryaha galayeen waxa joogay maato iyo caruur. may samayn sifo ay ku baaraan oo dadkan guryaha ku sugan ee maatada ayna runtii ay ciidamada raali kaga noqdaan, balse awood ayaa albaab kasta lagu garaacay oo gudaha ilaa qol kasta lagu galay. 3 guri markii ay ka soo baareen Cabdimaalig ka soo waayeenna waxa ay hurro walanwal oo la jaara xafiiska Cabdimaalig ay ku wareejiyeen gaarigii oo furan iyo sidoo kale xafiiskii oo furan. abwaan hurro walanwal wuu ka diiday ciidanka inuu kala wareego gaariga iyo xafiiska sababtoo ah iyaga ayaa furay oo labaduba waxay ahaayeen markaa baylaha oo way furnaayeen. weerarkan xafiiska lagu soo qaaday ee lagu raadinayay Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon oo aan ahayn kanoo kaliya oo hore uga dhacday dugsiga Smarty isagoo Cabdimaalig ku sugan xafladii furitaanka oo warbaahin ahaan ku kaalmeynaya dugsigaasi in ciidamo ay sidoo kale ku soo weerareen dugsigaasi, balse markii uu ka baxay iskuulka ay ciidamadu yimaadeen dugsiga. weerarkaas iyo weeraradaas oo dhanba waxay ahaayeen kuwa sharci darro ah. cid haba yaraatee nala soo xidhiidhay ama sheegtay in Cabdimaalig la doonayo may jirin. wax warqada iyo wax sharci oo ay ciidanku siteen markii ay galayeen xafiiska warbaahinta may jirin. taasina waxay ka hor imanaysaa shuruucdii dalka u taalay. Cabdimaalig television ma haysto ilaa cadna ma haysto, kaliya wuxuu ku daabacaa bartiisa Facebooka. aragtiisa xorta ah ee uu daabaco ayaa dhinacyo badan taabanaysa. taas ayaana keentay in la dhibsado oo weeraro noocan ay dhacaan oo istaba joogi. midda meesha laga doonayaa waxa weeye inuu Cabdimaalig noqdo mid waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin ee ay raalida ka yihiin kaliya uun mid ku hadla oo soo qora, balse Cabdimaalig ma aha shakhsi iyagu waxay doonayaan sameeya. waxa uu sameeyaa waa xaqiiqada jirta. dulmi uu arkayana kama aamuso. weerarka Cabdimaalig lagu weeraray waa mid lagu weerarayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta xorta ah, waana cambaaraynayna wax la ogolaan karana maaha. Axmed Salabaan Carab Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.